maalin wanaagsan haddii aan soo kabo qodobada wararka ee cryptocurrency haddii aan ku bilaabo Ripple waxaa shaaca ka qaaday in ay soo dayn doonto 1 bilyan oo xabo oo XRP ah marka la gaaro 1 bisha November oo ay gaarsiin yihiin maalmo kooban. Ripple waxa ay sheegtay in XRP lagu soo dari doono 1 bilyan oo xabo oo token ah mar walba oo la sameeyo token unlock waxa dhaca in qiimaha koonanku ay hoos u daataan. Waxaana la leeyahay token unlock waxa uu saameyn aad u ballaaran ku yeelan doona XRP qiimihiisa. qof weel ah oo muddo 16 sano ah aan dhaqaajin Bitcoin-tiisa ayaa waxa uu sameeyay in uu dhaqaajiyo Bitcoin u dhiganta 100 iyo konton xabo oo Bitcoin una dhiganta 16 milyan oo xilligan ah. qofkan ayaa muddo 16 sano ah waxa uu san wax dhaqdhaqaaq ku sameeyeen Bitcoin-tiisa hadda waxa la arkay inuu dhaqaajiyay. Khibradu siyaabo kala duwan ayay u falanqeeyeen haddii dadka loo yaqaano OG Waleska ama dadkii hore ee Waleska ah ay dhaqdhaqaaq ku sameeyaan suuqa waxa leeyahay waxa soo socda isbeddello waaweyn oo dhan walba suuqa u saameyn kara. magaalada Miami ee Mareykanka waxa lagu qaban doonaa shirweyne ballaaran kaas oo diiradda saaraya blockchain-ka iswaafajinta AI-ga iyo cryptocurrency waxa ay soo jeedin doontaa hal abuurayaal ballaaran. sidoo kale shirka waxa soo qayb gali doona hogaamiyaal hal abuurayaal iyo dadka socda DeFi-ga si ay u indhaynayaan mustaqbalka cryptocurrency ee iswaafajinta AI-ga iyo sidoo kale cryptada. sidoo kale waxa looga hadlayaa horumarinta mustaqbalka ee cryptocurrency iyo blockchain-ka. qodobadaas ayaa ugu waaweyn wararka cryptocurrency ee maanta mar walba la soco ama exchange si aad u heshid macluumaad ku saabsan cryptocurrency. sidoo kale follow soo dhigto TikTok-keena, subscribe soo saar YouTube-keena, soo follow gareeya page-keena Facebook-ga. haddii aad u baahan tihiin USDT qiimaheedu uu jaban yahay maadaama xilligan uu jiro xilliga suuqa laga faa'iideysan lahaa la soo xiriira lambarka profile-ka saaran. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin.